suurta gashay inaan waraysi la yeelno gudoomiyaha hay'adda dalada culimada Soomaaliyeed Sheekh Bashiir Axmed Salaad oo aan la kulanay ugu horreyn waxaan weydiinay Sheekh Bashiir gudoomiye waxa tahay gudoomiyaha hay'adda culimada Soomaaliyeed sideed u aragtaa xaaladda Soomaaliya ay sii xumaanaysa. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أدعو ما صنتهم كنت ديوانك كحالدي سوى سيح مان سلسلة عشاكتين أنا قلنا قولوا معان هراء ودقني إنه ودك حالدي إيسان إنتان قارين ودباتوين كيبا اسكبت بغال كيبا سيح ماضي أباره وأصو كردين فرقلنتي شيء وأصو بدن إيسا ومدي لفت هذا خلاف كيدي كردات سلام تيدو ويصاب بدن إيسا مركا علامين فربضان أو موجينيا إن عيركي وسيح ماضي وتذكي أمدي يدبك سوغارا يوسيبة أيات جرتا سيكسر عن نقطة إن وحن لقبحه أيها رجينا إن شاء الله تعالى لكن وهدي باقة علماء هي باقة وحقرتك هي باقة تذكر نبض الرباه ومارك تودنك أمد أوضانا يركض الليالة أيها دبك لقبح كراسا رجينا إنه مركا حالة كنت آل بي وعلكت هاي هدي دنك عن خلافك لقد في خلاف ربنا ودنك استأه ومركا استطابتي أيها جرا هدي لقد في شوطتك نيد يمرالك ويأوسي حماضي ومدي يقحي إيو كلا داشدي إيو كلا فرق مركزتا ومارت وقار هيو أيضا لأن سيدي ودنك لقد صعوده ومارت لقد قور هيو إذا يجي بدون مقرانه إيو فرقلنتي عن جلدة إيو داد عالم كورونا وحبا إذن غوانا لدينا حقانا من يفتينا يبكد واسيب لنا ما كنت حالكم بقى بجرة horaantii sanadkan nin kamid ah nin ay al-shabaab ku eedeeyeen inuu ahaa basaas ayaa sheegtay in uu ururkaaga uu ka tirsanaa marka maxaad arrintaas ka oran lahayd. بسم الله horta marka hore anagu jamaaco diini ah oo dacwi ah ayaan nahay oo xataa kelimada ururka leeyahay in xoolo dhibayso marka qaarkood ay mudanaysaa anagu jamaaco diini ma nahay urur siyaasadeed ma nihin wax ka soo qaldan waa ka hadlaynaa ama ha noqdaan siyaasad ama wax kale ha noqdaan laakiin maxaan ku iraahaa sayana ila tahay waxa ninka asaga sheegtay markii arrinkiisa uu soo baxay waan ka hadalnay waxaan ka soo saarnay bayaanaad warbaahinta la hadalnay ninkaas nimankaas ayaga ayaa isku dambeeyay ayaga ayaa yaqaanay ayagu la socday ayagu la shaqayn jiray haddii wuxuu ahaa sida xalkiisu yahay ayaga un kama dheerasay ee maaragtay annaga nala tahay marka runtii dee aad baan uga xunnaa in dadka la iska tuhumaysto waxaan ka xunnaa in qof muslima saas oo kale la iska dilo oo maaragtay qof wuxuu yahay iyo ciddii difaaci lahayd iyo xaalkiisa aan la ogeyn oo qofku sushaanis u helin in dhabta ay soo baxdo runtii aad baa uga xunnahay hadda keligiisna maaha ummadda kaleo la dilahayey maaragtay ama ha noqdaan dumar ama ha noqdo dhalinyaro qof kasta muslim oo la dilaa maanta waana dhibaysaa marka asagoo hadda qiimo gaar ah dhiiggiisi ma laha laakiin hadda dhibaatadan baa sii ziyaadaysa qofka muslimkaa in dhiiggiisa la fududaysto oo laiska tuhumaysto aad bay u xuntaa gaar ahaan qofka noocaas oo kale ah ayagu ay is yaqaaneen oo isku xirnaayeen oo ay saaxiib ahaan jireen sida aan sheegnay oo taariikhda lagu hayo marka runtii waan ka xunnay annagu maaragtay istuhumaysiga noocaas oo kale waxaan kaloo ka xunnahay dhiig banaysiga iska sii socon haya oo runtii aad iyo aad waxa looga xumaado ah qofkuna hadda qof muslima weeye oo ma dhibka gaaray iyo dhibka la gaarsiiyey adduun aakhiraba maaragtay insha Allah taala dad ilaahay subhanahu wa ta'ala soo saari doona ama waxa ka hadli doona ama waxaas maaragtay waxay yihiin oo la fahmi doona marka qadiyooyinka faraha badan oo runtii aan la garanaynin maxaan ku waraha sida ku dhaceen iyo sida wax u dhaceen aan la garanaynin oo nimankaas oo koox meel ku qarsoon ahi waxay sameynayso iyo ciday dilayso iyo ciday dishay iyo cidii kalaba aan la kala aqoonin baa iska jirta marka mugdiga faraha badan oo laga bixi doona qofka muslimka dhiiggiisuna haddii adduunka la waa aakhira la heli doona si aniga la tahay gudoomiye waxa tahay hay'adda gudoomiyaha hay'adda culimada Soomaaliyeed gaar ahaan culimada Soomaaliyeed sida aadka ah loo tixgeliyo dabeeqadii 2009 ayay heerna malayna waxaad isku daydeen adinka iyo culimo aad kamid tahay masaaliix waad ku gundaraysateen waxaad soo badanayso xilligaas wixii ka dambeeyay ereyga mustid ama isgaalaysiinta ama ridada ay isticmaalaan inta badan horjoogayaasha al-shabaab
waxay iclaamiyaan inta badan jihaad waxay sheegaan inta badan in dowladda Sheekh Shariif dadka taageersan ama inta ku xeeran degmooyinka ay maamulaan dowladda inay diinta islaamka ka baxeen sida fu'aasan gole ayaa aad u isticmaala eraygaas maxay diinta islaamka ka qabtaa erayga ridaynta mase lagu tilmaami karaa dowladda Sheekh Shariif dowlad rida ah ama dowlad maaragtay ama dad ka baxay diinta islaamka بسم الله runtii dhibaatooyinka jira ay kamid tahay in dhibaatooyinka aysan ku ekaanin khilaaf siyaasi ah ama khilaaf adduunyeed laakiin xataa loo tallaabsado xaggii diinta oo maaragtay magacii diinta iyo mustalaxaadkii diinta iyo erebixintii diinta loo isticmaalayo si khaldan oo qofkuwa maaragtay qofkay iskhilaafaanba uu kaga argudanayo inuu isticmaalo erayo diineed oo Allah subhanahu wa ta'ala uu soo dejiyay runtii kelimadaas meesha loo isticmaalayaa bariyahan dambe masaxna dadku iskhilaafi karaan haba dhexmari kara aragti kala gedsan bay yeelan karaan laakiin qofka muslimka ah oo shahaadanaya oo ilaahay diintiisa ma aaminsan oo ilaahay ogol oo nabigiisa sallallahu alayhi wasallam rumaysan qofka noocaas in la gaalaysiiya diinta ma ay ogola qofkii gaal asaga soo bixi doono had wala fahmi karaa laakiin qofka aniga khilaafa ama aragtideeda diida ama anigu saan wuxuu rabo ka hor yimaada ama ficiladeeda iyo waxaan sameynaya isla qumanayn qofkaasi waa gaal warkaas wax sax ma aha nabigana sallallahu alayhi wasallam ka soo haray maaragtay waa la khilaafi karaa waxay sameynayaan su'aal laga qabi karaa marka dadka bani aadamka waqtigan jawaaba oo ka sii xaq jiraan marka qofkii khaldan in loo niqaasho baa loo baahan yahay in wax la isfahamsiiyo loo baahan yahay in la isgaalaysiiyahay oo diinta magaceeda lagu kala argutaa wax la ogol yahay maaha diinta runtii dalka dhacba ay noqonaysaa qofka muslimka ah nooc kasta uu yahay ama ha noqdo qof shacab oo maartay jidka marahaya ama ha noqdo ganacsade ama ha noqdo nin saxafi oo warbaahinaya ama ha noqdo nin baabuur wada ama ha noqdo dumar ama rag ha noqdo ama ha noqdo qof xataa sheeganaya xafiis fadhiya oo shaqaale dowladeed ah ama military ama ciidan dowladeed ah qof haddii shahaadan hayo oo diinta islaamka uu qirsan yahay uu tawxiidsan hayo qofkaas lama gaalaysiin karo waa khilaafta lagu gaalaysiin karo warkayga diida lagu gaalaysiin karo anaga iga soo jeedo lagu gaalaysiin karo qofka wixii ka khaldan oo adiga ku haysto adna ku haysata marka labadiinu way haysataan niba wax ka sheegaya marka hadda taadiitiisa maar in diinta loo bandhiga loo baahan yahay in la yiraahdo kaliya soconaysa anigu waxaan sheegay kaliya baa sax iga soo horjeedana waa gaal arrintaas runtii sax maaha anagu markii arintii 2009 sida sheegtay maxaan ku wada soo bandhignay fikrad aan isleenahay umada ku caymiya diinta ku caymiya dhibaatada ku yeelay baan islahayn hadda waan ka qaadan waayo runtii guuldarro ma aha maxaa yeelay guuldarrada qofku markii ma aragtay runtii uu dib ku dhaco weeye anaga wixii aan sheegnay oo diinta aan ka naqaanay ama umada aan ugu danaynaynay ayay ahayd marka tii anigu waa sheegnay runtii waan ka diiday hadda eeda diidmadana nimankaas jihaadka iclaamin hayay ayaa runtii anigu eeda aan saarayna meeshana jihaad kama jirin kama jiro maxaa yeelay dad islaamka wada sheeganaya oo shalay aan wada socdeen oo shalay wada dagaalamahayeen oo maaragtay isku dhan ahaa haddii siyaasa ahaan ay aragtaan isku khilaafeen waxba isla jihaad haya ma soconayso arrinkaas waa khalad marka hadda sidaan hore u niri waxaad oleena in la joojiyo ummadana loo soo noqdo lana wada tashado wixii khaldana la wada saxdo baa anigu aaminsanahay gudoomiye waxaad tahay nin culamada Soomaaliyeed ku weyn ugu yaraan shakhsiyaadka horjoogayaasha al-shabaab wax aqoon ah ama kutubadii aad akhrin jirtay ama risaalooyinkii ama maaragtay markii iskugu imaan jireen maaragtay meelaha masaajidada wax aqoon ah ugu leedahay dabcan shakhsiyaadka haatan horbooday al-shabaab sida fu'aasan gole أحمد عبد القدومي الشخصيات wax aqoon ah hebel iyo wali wax miyaad saarteen dadkaasi ma santahay runtii raggaas dacwada iyo diinta iyo wadanka iyo dalka waa naga dhaxeeyay
masaajidana dawaa maaragtay lagu wada cibaadaystaa marka nimankaa runtii niman badan oo maaragtay masaajida iyo dacwada iyo diinta iyo waxbarashada iyo aan isku naqaanay way ay jiraan laakiin anagu markii haddee ra'yigeena aan soo jeedinay oo anagu diinta waxay qabta aan sheegnay ayagu runtii waa inagu khilaafeen aragtideedana maaragtay maxaanku rahaa khilaaf keliya maahana tuhun iyo wax ka sheeg ayay runtii nagu dareen marka hadda nimankaas aan runtii dee aqoonta lees yaqaanay iyo aqoontaan iyo aqoon la-aanta hadda midna waxba taramayso midna waxba dhibi maysee waxaa noo muhiimsan annaga ummaddan ka mid nahay ayay ummadda ka mid yihiin in diinta loo soo noqdo ummadda loo soo noqdo anaga hadda noo muhiimsan runtii de anagu aqoontii hore iyo maaragtay maxaanku macrifadii naga dhexaysay iyo diintii iyo dacwadii iyo waxbarashadii iyo ninba meel kaga jiray waa jirtay laakiin waxaa hadda anaga noo daran in ummadda loo soo noqdo oo diinta iyo maaragtay loo daneeyo ayaa hadda wax taraysa waxaan anaga runtii aan rajeynaynaa in muddo badan hadda maaragtay maxaanku rahaa maaragtay la arkay dhibaatada dhacaysa hadalka culimada la diiyey waqti badan baa runtii soo maray dhibaatooyinka inay sii ziyaadaan maaha ma nusqaamin marka waxaan rajeynaynaa in ba lagu waana qaato taariikhda dheer oo runtii maxaanku rahaa ii sheeg hadda la marahayo oo lasoo maray dhiiga daadanaya ummadda qaxaysa ummadda maaragtay burburaysa maxaanku falagelinta iska badanaysa khilaafaadkooda soo tarahaya waddanka iyo dhibaataysa in lagu waana qaato oo bal maxaanku rahaa maaragtay anaga waanadeena iyo waxusheegeena iyo inta kale nooceena ah oo maaragtay waxgarabka ah ama odayaal ama waxgarab kale ah warkooda la yeelo oo loo soo noqdo baa hadda quman dabcan Soomaaliya dagaal ayaa ka dhacay 4 sano ugu dambeysay dagaalo diinta qof walba maaragtay ku gambarayso miyay jiraan maanta dhinacyada ku dagaalamayo 2 ama 3 cid ay doonaan ha ahaadaan urur ama dawlad ama hay'ad aad ku eedeynaysan inay dhibaatada Soomaaliya ka dambeeyaan oo carabaabaysa sida al-shabaab dawladda ku meel gaarka ciidamada AMISOM maanta hay'adii culimada Soomaaliyeed tihiin ama bayaan cad ka soo saari kartaan waa dhigi kartaan qoladaas qaldan ee shacabka iska qabto waa maasanta runtii anagu dhibaatada dhacaysa oo u jeedinaa waxaan ka soo saarnay laga soo bilaabo markay bilaabanaysay ilaa hadda oo maaragtay muddo dheer ay socoto markastana waxaan soo saari jirnay bayaan aan kaga hadlayno xaaladda taagan haddii marka la soo koobo dhibka Soomaaliyeed maanta dad fara badan baa gacmaha kula jira runtii dad fara badan baa maaragtay qayb ka ah haba la kala darnaado hala kala horeeyo laakiin anagu maaragtay haddii aan dib u noqono anaga fikradeena musaalaxada iyo dib joojinta iyo wadan cayminta ahayd fikradeena noocaas oo kala ahayd markii aan soo jeedinay oo 2 sano ka hor ahayd anaga diidmadiina laga hortimid oo horteena taalay oo aan runtii meena ka marnay aan weynay oo mashruuceena ka hortimid diidmadaasi xagga nimanka jihaadka sheegayay ayaa looga timid oo markaa qoladan shabaabka iyo qolada islaamka ah ayay ahayd qoladan dawladda xaggooda ayagu inay warkeena yeelahayaan ay diyaar u yihiin ayay ugu yaraan noo sheegeen marka xataa sheegidda lafteeda warkaaga waan kaa yeelay iyo diyaar baan ah iyo waxaas oo kale ay lafteeda wax dhan weeye marka annaga runtii mushkiladda bilowgeedii iyo inteedii badnayd waxaan u tiirinaynaa nimankii taladeena diiday taladii aqoon-yahanada diiday taladii odayaasha diiday bal waxaa la odhan karaa taladii ummadda diiday oo nimanka noocaasa ah baa anigu runtii culayska koobaad xaggaasu ka yimid hadda markii meesha qasantana qof kastaa qashaysa cadow kalaa qasahaya cadow dhow baa qasaya mid fog baa qasahaya qof maaragtay kaloo iska bacan lunsan baa qasahaya marka dhibaatadu musaalaxa diidka iyo maaragtay iyo wadahadal diidka iyo qofka ummadda oo dhan tuura ummadda oo dhan ilida ka xirta danihiisa gaarka aan u socda halkaas ka bilaabatay taasna qolada maaragtay hadda shabaabka iskugu soo aruurtay ayaa culayskeeda lahayd hadda markii meesha ay qasantana wixii anagu aan ka digaynay oo ahayd cadowga oo soo bata dhibaatada badata ciidamadan maxaanku afrikaanka laftooda uu maaragtay oranay waxbaan xalinaynaa waxbaan difaacay oranay laftooda dhibku ay sii ziyaadinayaan maaragtay dawladda lafteedu xilkii looga baahnaa iyo wixii ay ummadda maaragtay maxaanku rahaa tilmaaman hayaa sida loo baahnaa ugama soo bixin maxaanku rahaa qolooyinkan kaloo hadda ahlu sunna magacaas la baxay laftoodu dhibku waa ku soo biireen oo niman hadda laftoodu maaragtay danta u shaqaynayaan iyo waxa ay rabaan si fiican u qeexay oo ummadda guud ahaan maaragtay maxaanku rahaa yani taladeeda
runtii qayb kaga jeenaysan ahayn ay koox yihiin fikrad leh wax aaminsan wax raadinaya marka anaga de waxa ummadda dhibaya waa un koox raadinaysa weeye ummadda inteedii kale shacabkeedii waxgaradkeedii culimadeedii oo dhan haddii laga dees noqdo oo koox hadba dan leh oo afkaar gaara fisanaysa oo dad gaara cadow maaragtay ka dhiganaysa oo ajada gaara wadata hadday soo baxdaahay ifkiisii siyaadada maaragtay noqonaysa marka waxaas oo dhan anigu kula talinaynaa in danka gaar ahaaneed ama qof ha noqoto ama koox ha noqoto laga soo tanaasulo bal ummadda Soomaaliyeed isku timaado danteeda guud ahaaneed horta meel lagu qoro oo la isku waafaqo kadibna maaragtay insha Allah taala la raadiyo waa la heli doonaa su'aal kala weydiina waxay tahay waxaa tahay hogaankii hay'adda culimada Soomaaliyeed madaafiicda maalin walba ay ciidamada AMISOM iyo al-shabaab isku garaacaan magaalada Muqdisho ma kala hadasheen dawladda ku meel gaarka in madaafiicda ay dadka biiso al-shabaab ay dadka bayaan base waad ka aamusteen runtii waan kala hadalnay anagu ma wax kastoo dhib oo dhacahay anagu waan ka hadalnaa tabarteen in sida wadanka maarday warbaahintiisa iyo sawirqabkiisa iska yar tahay qolada dawladda ah mar hore maalintii la soo magacaabay anigu waxaan ku niri xil baa qaaday xilka aad qaadeen sidii Ilaahay subhanahu wa ta'ala ugu talagalay uga soo baxayaan ku niri wax kasta ay noqoto markii dhibaatada ciidamada ay soo baxdeen waa la hadalnay anaga la hadalnay odayaasha la hadlay dad badan baa u dirnay in macnaha maaragtay ay mas'uul ka noqdaan wixii ay ciidamadaas ay sameeyaan kala hadalnay qoladan kale shabaabka ana waa la hadalnay in ayaga aysan sabab u noqonin in ummadda maaragtay maxaa la gumaado ama dib loo geysto maxay waxba tuuraysa waxa aad tuurtay inaad tuurtid horta ma loo baahan yahay waa kow haddaad tuurtidna maxay kuu tartay kadib maxaa lagu soo jawaabay marka intaas su'aalood ayaa jira oo ficilkiina ka dharanhaya oo hadda anagu aan jawaab u haynin ama aan faa'iido lahayn hala joojiyo baa anagu niri maxaa yeelay idinka dagaalka aad samaynaysaan waxaa ku raadinaysaan wax ummadda maahane idinkoo koox ah unbaa isdifaacaya aragti gaar aad difaacaysaan ummadda aragtideeda idinku masali kartaan ayaan ku niri marka dhib kasto ka dhacay ummadda ama ha ka yimaado xagga maaragtay ciidamada Afrikaanka ama ha ka yimaado xagga dhalinyarada shabaabka ah oo maaragtay jihaadka iyo arrimahaas daawadna oranaya ama next ka yimaado tabarteen aan ka hadalnaa hada laakiin wadanka kala go'aan iyo islaamka warbaahinta iska warqabin ayaa dhici karta in xoogaa ma warkii loo baahno u fidin waxaa tahay nin ku weyn culimada islaamka ama culimada Soomaaliyeed in diinta islaamka maxay ka qabtaa in urur ama koox ay dad toogato waxa la yiri waxa dil toogasho ah ama diinta islaamka wax ku fulin kara amiir islaam ama madaxweyne daleed marka sida aan ognahay al-shabaab shakhsiyaad dad badan ay toogteen xisbul islaam sidoo kale dawladda ku meel gaarka sidoo kale dadkaas maxaa lagu tilmaami karaa oo toogashada dadku sameeyo macnaha diiniyan ma banaan tahay in urur ama koox ay ayadoo magaca diinta islaamka sheeganaysa ay tiraado ninkaas waa radoobay ama ninkaas maaragtay diinta islaamka ka baxay ama basaas oo hala toogto diinta islaamka ma ka qabtaa ama santa runtii waxa weeye diinta shariicada in la ogaa xil muslimiinta saaran weeye xilka laakiin gudanaysa iyo cid ku haboon in laga fiirsado ayaa loo baahan yahay hadii aan soo koobo qofka muslimka ah wuxuu ku xadgudbahay ama waa dan gaar ahaaneed ama waa dan guud weeye mid ay noqotoba meel waxaan la geeyay iyo cid waxaan laga xaajooday cid waxaan ka mas'uulin lahaa waa loo baahan yahay marka xuduud islaamka dadka muslimiinta ah xuduudu waa arin guud ahaaneed arin gaar ah maaha waa arin guud ahaaneed maslaxada guud ahaaneed lagu wardiyeeyaa maslaxada guud ahaaneedna koox ma wardiyeyn karto dad ummadda u dhiibatay oo ummadda ku kalsoon tahay ayaa runtii wardiyeyn karta dad waxa wardiyeyn kara aan lagu tuhsanayn inay u adeegsanayaan dana gaar ahaaneed aan lagu tuhsanayn marka magacii guud iyo dantii guud hadii koox la wareegto hada waxa laga aaminay kooxdaani danteeda gaarka inay soo adeegsato marka si mid looga baxo amiir ama madaxweyne ama maamul dadka ay rumaysan yihiin oo dadka ka dambeeyaan oo dadku maaragtay ay u dhiibteen ayaa waxaan sameeyo ay ku kalsoon yihiin oo hatta waxa sida u dhacay hatta laga ogaan karo oo maxkamad furan karo dadku soo dacwoon karaan dadku isdifaaci karaan
asna awood u leh in qofkii waxaan sameeyay uu tartiib u baaro uu raadiyo oo maarta ka baarando laakiin koox dhibaato haysato ama duruufaysan oo laftooda dhuuman haya oo wixii dhacay xataa aan baaran karin ciduna dadka aysan raadin karin aan la xaajoon karin oo ayaguna baqaya lagana baqahayo kooxda noocaas inay tiraa dantii guud ahaan baan misalayna awoodeeda ma laha xayl jaaniskeeda ma hayso marka diin ahaan arrinkaas waa arrin khalad ah maxaa yeelay xil aan lahayn inaad qaadid waxaan lagu dhiiban in adiga ismaartay isiisiisid wixii ummaddu lahayd inaad kaligaa qaadatid kadibna adiga aad isticmaashid oo meeshii loo baahna qofkii ummadda dhibaya in la qabto haddaa u bedeshid qofkii aniga ay dhibahaya baan qabanaya arrinkaas waa khalad weeye حتى وكلا دريين مثلا وحيالا waxaa jira caamaho aan maaragtay siyaasadda galaa jira oo ninkan waa jaasuus ummadda oo dhan buu dhibahaya ummaddu cadow ku yahay hada ummadda maslaxadeeda gormaa la garanay ummadda maslaxadeeda horta marka hore in isla go'aamiya loo baahan yahay oo la isla garto kadib ka san garanayna cid cadow ku ah laakiin haddii ummadda adiga aad noqotid oo adiga diinta aad noqotid oo adiga tira marka ana diintii ah ana ummadii ah kadib marka cid aniga ay hortimaada ana maaragtay waa gaalowday ama waa jaasuus aad ilaahay macna waxa weeye dintii guud ahaaneed ayaa meel gaar ah la gashay lagu diinta lama ogaarin kana waxa soo kala maxaa yeelay waxa weeye wixii ilaahay ummadda u wada dhiibay in qof kaliya ama koox kaliya qaadato diinta ma ogola waxyaalaha ma runtii ajiibka waxa kamid ah Allah subhanahu wa ta'ala danta guud asay nabigiisa ayuu u nisbeeyay qofkan uma nisbaynin marka in la iska ilaasho weeye qofka cidii kooxdu danteeda ilaasan kartaa laakiin in magaci diinta isticmaashaa waa khalad kooxo badan siyaasiyiin ah jira oo waxay doonaan iska sameeysta laakiin in diintii magaceeda la qaato oo qof aan ummadda qancin karin qof aan ummadii maartaan ka dhuumanaya asna ummadda ay ka dhuumanaysaa qofkaas dan guud ahaaneed lama dhiibi karo runtii waana khalad weeye marka waa la gaari doona markii dawladda noqdo oo dadku maaragtay maxaan ku rahaa qofku awood inuu isku soo bandhigo uu leeyahay oo wuxuu rabo sheeganayo oo ummadda si fiican ula maamuli karo runtii haddii la gaaro qofka lama diidana laakiin qofka asagoo aan gaarin oo la dhuumanaya inuu dawlad iska dhigo oo wuxuu tabarteeda lahayn runtii ku dhaqaaqahay arrinkaasi dib weyn bay keenaysaa ugu dambeyn su-aasha koodina waxay tahay ururka al-shabaab ujeedooyinka iyo hadafka uu wato inta badan wuxuu sheegay inuu jihaad doonayo ama uu diinta islaamka wado marka maxaa la dhihi karaa ma duqaad dabcan diinta ku xadgudbaysaa la dhihi karaa al-shabaab mise waa culamo ayaa la dhihi karaa bismillah horta shabaab culamo ma aha niman dhalinyaro weeye maaragtay diinta aqoonteeda qofka wuxuu ka baran karaa waa sax laakiin diinta aan qofkii 40 sano soo waday barashadeeda iyo barideeda soo waday in uu la sinaado qof maxaan ku wada 2 sano maxaafirta soo baxay runtii arrinka sax ma aha marka dadka badankood waa dad maxaan ku rahaa maaragtay maxaan ku gadaal ka soo baxay weeye culumadana hadda culimada waa la yaqaan Soomaaliyeed diintana intii la waday oo la baran hayay أو رنتي حقف كستاية مريسا ومدنا واتقانا قف كرختنا كوادي رفرك ما أعرف رفرك السنة شقين هي وخبرة عليه إذا رفرك السنة سوق الانتبي تذكر مسلمان مركا قف كل الحق والله لكن ولا الله شاء الله سوق الانتبي شاء الله وحن بالله وذي تذكر رفرك السنة سوق وذي سوق بره هي ومدنا بره هي أيات شوية مركا عضو مركي دي مار وقتها ولا جاي الدوناية تذكر دين كان علم يدي عملك يدي فيلم يدي يمارك لو بدن بيجي على وطن بيه أدنى وحي كوسو آدو ولغو ديرو أو مارد مناسب كاغا إن شاء الله تعالى يابا كابا ذنبا مركا إنا قفت وحي لما أصوه اسكو قاتها شيء مناسب معها نمكاس أحرنتي وجيد أهانا أنا وانا خديني وان شغلي وانا خديني من خديني مارد دسكو جالسين بكو خلبيهين دسكو ديكو بنسمة بكو خلبيهين ومدي أو مستقبل كيدي يدنا هيدا أيضا إلا وريجينو اسكاقاتي بكو خلبيهين ومدي دجال عالمي الدوليين أي كخلبيين مركا أنت أصل خلاص يكجيران وأنا أقول نصيحة هذا أقول نصيحة إننا إن شاء الله تعالى كسر الله بهرجينا والله أعلم. سؤال كله هذا نحن عشرة أنت بدل على الشباب وحل أركع أيوة تسك الجورة أيوة الدين الإسلام محي جورة كقطع. كنت تمدح سوق النساء هذا قف إنه ما ركتي محاك وراها وقعنتي الساء ويا أنا وحنا ربع سميسان هيا قف دلا والد دلا إدي قف يعني ودلا وحكود دلا والود لكره هذا قصاص أو ما لا أرجو صنايا ولا قارب يراها ما ركتي هل شيء كلا استعمال كره أو صفة قارب يراها قارب هنا قف كانوا
وحكود لي هذا حاران هين أي الوجود الكرامة ليراها ما كرنتي أوركان وأور محنك ورانتي سياسي وحيالها وقت الصوم مدة الوعد سجلين كانوا استعمالهم بسكوت ديي هذا كان كلام معه وحنا دينته إنه ربطه أما دينته إيش هاي أما مستحبيهم معه هنا وهم عبد سجلين مرة وقت الصوم الوعد سجلين كانوا استعماله أي روتين سوداء هيان هذا وحنا دلوقتي كان أمدي دينتي سورة هذا يمقال كذا يمدع هذا والله حليه ayaa ka dhalanaysa marka waxa weeye ficilkan qofkan lagu sameeyo qofka horta muxuu mutaystay yaa maxkamad saaray xalkiisu muxuu yahay adiga laftaada ninka wixiisa ma sheegi kartaa ma laga doodi karaa laftaada meel banaan ma imaan kartaa xalkiisa marka saad ogaatid qofku marka waxa weeye waa in wixii banaan furan la keeno weeye laakiin wixii meel mugdi ah lagu go'aansanayo oo koox yar oo ayagu isku dan ah واستدفاع عيسى وكي حكومة هي كي شيء هي كي مخاتيجة اسكت بينهم أصلا سعطان يعني مخاتي مقدر لقفك مخاف عدو واجع مخاتي كوما هنكره قفك عدو كويه مخاتي كوما نقنكره قفك قرابة كلائه أما ما عرفت مخاف ورا حكذا هذه مخاتي كوما هنكره أيوة مخاتي كوما نقنكره قرابة مخاتي ما عرفت كوما نقنكره محايا لي ومركو عدو كويه هنا هذا كويه تيسنا إياه قف مركو حسب كوي هنا إنه كوي حلا لقى يابا مركو وركيز اللي قبل معه مركو كوح أيوه محنك ورا اسكو حكته اسكو أفكاره ما عرفت اسكو رجعه إذا كم مرخاتك عانن إنه أقبتان وخلط كنت عدالنا معها عرفتي إنه محنك ورا قفك عدو ده كنت تسدان بالغ في الكرة وكانوا دارن كذا خلدويه ولا أورن كار أنت أصل خلد ده كتيرته وحنا قمنا نارن كاسة كتنازلان إن هم تيسون نقدان إن مجدي كسر بحان ويبنان كيمادان أي لو بهني هاي سي ما ركت وحيهين لفهمه سي ومدعو كسرناته سي خلف الله هيستمرت يقول جوابان بلو بهني لكن قف أصله ما رك مشكلة هيسن أو ظروف هيسن أو أرنا عالمي أي هيستان إنه مدي ما ركت محن كوراها ظروفتيسي oo kale uu galiyo xaq uma laha saan waa aaminsanahay umadu waa ka badan tahay umadu ma dhuuman karto umadu dana leedahay umadu diin bay leedahay umadu nooc kasta leedahay marka umadu say tacaamulayso oo caalamku la tacaamulayso ayada taqaana adigu duruuftaada xawaashaas ay dibaranaysid adiga yaqaana laakiin in umadii duruuftaada aad galisid xaq uma leeyahay marka ficilada noocaas oo kala ah ودينك يسون قلنا أو ذاتك المارس اللي قاعد سجين هي أو ذاتك المارس اللي قاعد جه اللي قاعد جين هي ظهرت اللي أقول له ما مناسب أنا ما صار عن سنة كسوها قدوميها هيدا علماء الصومالية الشيخ بشير أحمد صلاة أو رمي بقى النهر